waxaan idin sidaa 11 xidig oo waayeen waqtiga ay siijiyeen ku guuleysiga jaa-isada Ballon d'Or ayagoo wax waliba kula guuleystay xulkooda iyo kooxaha marka ay u ciyaarayeen taariikhduna maqaam sare ay siisay xidigahaasi. haddaba waxaan ka bilaabi doonaa lambarka 11aad waxaa fadhiya laacibka reer Faransa iyo kooxda Bayern Munich waaye ku soo qaatay ee Franck Ribéry. Franck Ribéry waxa uu soo qaatay waaye fiican maadaama uu ah xidigii ugu wanaagsan naadiga Bayern Munich muddo halkan joogay balse nasiibkuma u siin waayihiisa wacnaa inuu ku guuleysto jaa-isada Ballon d'Or balse dunida magac ayuu ka sameeyay. lambarka 10aad waxaa soo fadhiistay oo soo xigtay weliba qayb ka noqday xidigaha ugu wanaagsan ee aan halin jaa-isadaasi Arjen Robben bixilihii hore ee kooxda Bayern Munich iyo xulka qaranka Netherlands ayaa Bayern Munich ka sameeyay wacdaro aan la iloobi karin balse nasiibka ma uusan helin waayahana waa uu ka leeliyay. lambarka 9aad waxaa fadhiya laacibka lagu magacaabo Gianluigi Buffon waa goolhaye weyn magac iyo maqaam sare ku leh dunida haatan aan dul saarannahay. Juventus ayuu waaye joogay qaranka Italyna wuxuu ku guuleystay koobka adduunka balse nasiib wanaag ma uusan helin inuu noqdo nin jaa-isada Ballon d'Or ku guuleysta. waxaa xiga laacibka marka lagu magacaabo Sergio Ramos haatan kubadda cagta iyo ciyaaraa waayihiisa Real ayuu u higeeyey waa daafac wanaagsan mar waliba waxa uu soo bandhigaa hibada kubadda cagta uu ku leeyahay balse ma uusan hanan jaa-isada Ballon d'Or oo xidig walba uu koriyoodo. waxaa fadhiya laacibka lagu magacaabo Iker Casillas waa goolhaye weyn oo dunida wax badan ka soo qabtay naadiga Realna muddo u soo ciyaariyay dhowr Champions la soo guuleystay xulkiisna koobka adduunka kula guuleystay balse ma uusan helin waayihiisa in markaa loogu magac daro ama lagu waqlalo ku guuleysiga jaa-isada Ballon d'Or. waxaa fadhiya laacibka lagu magacaabo Andres Iniesta qof walba markuu maqlo kubad abuur ama playmaker waxaa ku soo dhacay Andres Iniesta balse waayihiisa ma uusan helin inuu jaa-isada ku guuleysto xidigaha waqtiga uusan saacadin. waxaa ku xiray Xavi Hernandez badii Burigi badii siiyay kooxda Barcelona ninka markaa laga yaabay in Dembélé ka dhexe ma uusan helin xulkiisa qaranka wuxuu kula guuleystay koob adduun naadiga Barcelona Champions League ayuu la hantay wax walbana uu kula guuleystay waqtigii uu joogay halka balse ma uusan helin jaa-isada Ballon d'Or inuu ku guuleysto laacibka lagu magacaabo Xavi Hernandez. waxaa inooga xiga laacibka markaa la yiraahdo Thierry Henry naadiga Arsenal waxa uu kula guuleystay wax waliba marka laga reebo koobka Champions League xulkiisa faqalsana koob adduun waa uu kula guuleystay ninka lagu magacaabo Thierry Henry waayihiisa waxay noqdeen inuu noqdo xidig ugu goolasho badan naadiga Arsenal balse jaa-isada Ballon d'Or waa uu ka oomanaa ilaa hadda noloshiisana ma aan lagu qorin ku guuleysiga jaa-isada Ballon d'Or laacibka markaa lagu magacaabo Thierry Henry. waxaa ku xiga Raúl González gooliyihii Liverpool ku ciyaari jiray naadiga Real Madrid iyo xulka qaranka Isbaanishka. Raúl González waa ayuu ahaa shumaca kaliya ee ka ifaa dhanka weerarka horyaalka La Liga balse nasiib darro ma uusan helin ku guuleysiga jaa-isada Ballon d'Or. waxaa nooga xiga laacibka markaa lagu magacaabo Paolo Maldini laacibka reer Talyaani daafacna uga ciyaarayay kooxda markaa lagu magacaabo AC Milan iyo xulka qaranka Talyaaniga daaficii ugu wanaagsanaa daaficii ugu haldoorsanaa daafaca ay ku degaan daafaca dunida haatan markaa ciyaara waaxda dambe nasiib ma uusan u helin jaa-isada Ballon d'Or. Franco ninka lagu magacaabo sina waxaa joogo naadiga AC Milan iyo xulka qaranka Talyaaniga u soo ciyaaray weliba dir sare ahaa waayihiisa ciyaareed wiilkiisana wixii ugu ficnaa ayuu ahaa laacibka kudhiisana waa uu ka soo lama uusan helin jaa-isada lagu magacaabo Ballon d'Or sameyn badan ayay soo gashay muran badan waa jaa-iso weyn qof labana waxa uu geliyay in markaa lagu murmo sida sanadii 2010 wasleysnaadari Andres Iniesta kuwa markaa loo sadalinay ahaayeen maadaama koob adduun midna final xulkiisa u yimid midna uu ku guuleystay. waxaa ogaataa in Lionel Messi uu ku guuleystay 2010 Paolo Cannavaro ayaa si final ugu siiyey maadaama xulkiisa daafaca markaa uu sameeyey Zizou ayaa si wanaagsan u ciyaaray Faransiiska balse Rozier uu qaatay ayaa markaa loo horeeyay nasiibkiisa ma uusan siin jaa-isada ugu weyn dunida ayaa markaa lagu tilmaamaa xidig walbana markaa uu koriyoodo. warbixintani waxay taabanaysay 11 xidig ka soomay ama nasiibka aan u yeelan waqtiga waayahana ay ka eedeen inay ku guuleystaan jaa-isada Ballon d'Or. warbixintana kala asxaabi intaan isugu imaan doono waqti hadii wacnaado Ramadaan.